in Iran lagu jahwareeriyo loogana dhigo in markaa Mareykanku uu diyaar u yahay heshiis in la gaaro laakiin Israa'iil ay diyaarinaysay hawlgalkan iyo dagaalkan haddaba warbixintaasi dhanka sirdoonka ayaa barnaamijka ku bilaabi doonaa waa tahay macluumaad dhanka sirdoonka oo ay qortay jariirada la yiraahdo Wall Street Journal ee ka soo baxda waddanka Mareykanka ayaa waxa lagu faahfaahiyay hawlgalkii Israa'iil ka filisay gudaha Iran sida ku cad warbixinta Israa'iil waxay qorshaysay hawlgalkan 10 sano ka hor iyadoo duuliyaasha diyaaradaha dagaalka Israa'iil loo tababaray dagaal masaafo dheer iyadoo la sheegayo in ay qaateen tababaro ah masaafo u dhiganta ilaa iyo Iran shabakada basaasiina oo Israa'iil ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa in laga hirgeliyay gudaha Iran kuwaasi oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku soo galaya dalka Iran iyagoo adeegsanaya xamuul iyo boorsooyin waxayna shaqadoodu ahayd inay ogaadaan oo ay daba galaan liis ay ku qoran yihiin hogaamiyaasha sarsare ee Iran warbixinta Wall Street Journal waxay leedahay Israa'iil waxay diyaarisay liis ay ku qoran yihiin 250 bartilmaameed kuwaasi oo dhammaantood ahaa madaxda saynisyahanada barnaamijka nuclear-ka Iran iyo waliba xarumo kala duwan oo dhanka ciidanka iyo nuclear-ka ah sida warbixintu sheegayso ka hor weerarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa khiyaanay Iran iyagoo iska dhigay inay isqalaafsan yihiin iyadoo Trumpna oo bartiisa Twitter ku qoray in uu jiro waqti ogolaanaya in heshiis lala gaaro Iran jimcihii militariga Israa'iil waxay ku dhawaaqeen in ay burburiyeen wasiyada ku dhigeen kumanaan mishiinada kala saara uranium-ka loo yaqaano centrifuge-ka ee Iran ay leedahay intii lagu jiray hawlgalka military ee socday 12 maalmood ee Israa'iil ugu magac dartay liibaha soo kacaya militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen oo lagu faafiyay baraha bulshada oo qoray afayeenka militariga Israa'iil Avijay Andre ayaa waxa uu ku sheegay in saddexda xarumood ee ugu muhiimsan nuclear-ka Iran si aadaha loo burburiyay waxay sidoo kale sheegaysaa warbixintu in la burburiyay xarumo cilmi baaris iyo kuwa horumarin oo la xiriira barnaamijka nuclear-ka Iran ayna khaarajiyeen 11 saynisyahan oo caan ah oo la xiriira mashruuca nuclear-ka Tehran militariga Israa'iil waxay kale ku andacoodeen in ay burburiyeen ku dhawaad 50% kaydka meelaha laga rido gantaalada marka lagu daro burburinta 15 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo weerar lagu qaaday 6 garoon oo diyaaradood Mareykanka ayaa isna qaaday weerar uu ku beegsaday gudaha Iran waa berigii Axadii hore iyadoo lagu soo waramayo in la weeraray xarumaha ugu muhiimsan ee nuclear-ka Iran Mareykanka ayaa adeegsaday diyaaradda nooca loo yaqaano B2 waxaana la sheegay 12 bam oo ah kuwa ka gudba dhulka hoostiisa gaar ahaan dhufaysada in markaa Mareykanku uu ku dhuftay halkaasi laakiin warbaahinta waddanka Mareykanka ayaa soo xigtay warbixin hordhac ah oo ka soo baxday hay'adaha sirdoonka difaaca ee dalka Mareykanka oo sheegaysa in weerarada barnaamijka nuclear-ka Iran ay hakad geliyeen ama ay hakad geli karaanba horu socodka Iran muddo bila laakiin aan si dhammaystiran loo burburin barnaamijyada nuclear-ka Iran aqalka cad ee waddanka Mareykanka looga arrimiyo wuxuu xaqiijiyay in weerarka lagu qaaday 3 xarumood oo nuclear-ka Iran ay leedahay lagu guuleystay waxaana eedayn loo jeediyay warbaahinta sida hadalka loo dhigay shakiga gelisay natiijada hawlgalkaas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay guul taariikhiya barnaamijkaasi fulintiisa waxaana si isdaba joog ah uu u sheegayay in la burburiyay xarumaha nuclear-ka ee Iran waatahay haddaba sheekada marka waxay leeyahay Netanyahu iyo Trump way is ogaayeen Israa'iil la muddo 10 sano ay diyaarinaysa weerarkan marka qobradu ay ka hadashay warbixintan uu qoray wargeyska leeyahay Wall Street Journal waxa leeyahay Israa'iil arrintan ma ahan arrin cusub oo hadda ay degdeg ku diyaarisay 10 sano waxa leeyahay waa dhici karta inay qorsheynaysa laakiin hawshan markay ugu yaraato sanad ilaa 2 sano ayay fulinaysay baa leeyahay sababtoo ah gudaha Iran waxa laga dhisay warshado xarumaha lagu farsameeyo diyaaradaha drone-iska waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno inta badan duqeymaha ka dhacay gudaha waddanka Iran
إسرائيل أي فلسي ما أهين إنتو ذا بدن كوا أي فليان ديار ذا دجالك إسرائيل سيدا دقيمها أي كفليان ودا كاسير لبنان جديه سمجارة بيروت هي أمريكا قزة بدي وحلو أديك سدي ديار ذا درون كجنتالا جربها اللي جرده أو جنتالا اللي هو marka waxa la arintaas waxa ka shaqeeyay dad gudaha Iiraan lagu tababaray loo diyaariyay suurtagal waxa leeyahay xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossad inay tay gudaha Iiraan galeen tababaro ay soo siiyeen dadkaasi arintu marka waxay xiise ku leedahay sheekada ku saabsan in la muujinayay bishii May horaanteedii markii Trump uu booqanayay wadamada khaliijka in laga dhigay in isqalaafsan yihiin Netanyahu iyo Trump laakiin la sheegay is ogaayeen طبعا واتكور قبطان حلقاسي مدحونها مريكا كدونالد ترامب wuxuu sheegay inuu sar booqan doonin Israa'iil waxa la arintaasi waxa lagu qaldeeyay Iiraan waxa laga dhigay in khilaaf uu ka dhaxeeyo Netanyahu iyo Donald Trump laakiin hawshu way socotay baa leeyahay halkaas marka waxa ka cadaatay barnaamijkii nuclear-ka Iiraan wada hadaladii ku aadanaa ee soo bilowday bishii Abriil 12keedii ee lagu kulmay magaalada Masqat ee wadankaasi Cumaan iyo sidoo kale magaalada Rooba intuu inay ahaayeen wax Soomaalidu ugu yeerto been guur waatay qodobkaas intaas ayna ku dhaafno sheekada xiisaha leh way noo soo socota ee ku saabsan Shiinaha oo Iiraan u bedelay Ruushka laakiin markan waxaan eegaynaa shalay barnaamijka wararka maanta waxaan idinku soo gudbinay sheeko xiiso leh oo ku aadan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 30 bilyan oo dollar inuu ugu talagalay inuu siiyo Iiraan lacagtaas weli waxa la sheegay in Mareykanka uu ka qaadayay wadamada Carabta isla markaasna Iiraan loo fasaxi doono lacag gaaraysa 6 bilyan oo dollarka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka marka arrintan uu ka jawaabay laakiin marka aynu dhamayno xubintan ama qaybtan waxaan isku keeni doonaa hadaladan sida isku waafaqeen gaar ahaan beeninta Mareykanka iyo warbixintii ay baahiyeen warbaahinta wadanka Mareykanka aynu eegno marka warbixintaasi iyo waxa laga yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu si adag u beenayay warbaahinta lagu baahiyay oo sheegaya in xukuumaddiisu ay ka fakarayso Iiraan inay ku caawiso 30 bilyan oo dollar oo lagu talagalay horumarinta barnaamijka tamarta nuclear-ka oo ah mid nabadeed telefishinada CNN iyo NBC Mareykanka laga leeyahay ayaa Khamiistii iyo Jimcihii waxay baahiyeen in maamulka Trump maalmihii la soo dhaafay uu ka hadlayay suurtagalnimada arrintan telefishinka CNN ayaa waxa uu ka soo xigtay sarkaal sare oo Mareykan ah in laga hadlayo dhowr soo jeedin oo kala duwan laakiin ilaa hadda go'aan rasmi ah la qaadan Trump ayaa fariin u soo dhigay baraha bulshada waxa uu si adag u beeniyay wararkaasi waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin in Mareykanku 30 bilyan oo dollar uu siinayo Iiraan si ay u dhistaan xarumo nuclear waxaana uu ku tilmaamay taas inay tahay wasida dalka u dhigaya warbaahintu ay faafisay oo khiyaano ah ka hor hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegayaa in qorshaha ay ka mid ahayd waa beeninta Trump uu beeninayay laakiin warbaahinta ay sheegayso in laga wada hadlay Iiraan in ay ka harto bacaan diyaaradaha Faransiiska oo sameeyay ee dagaalka ee Rafale arrintaasi oo loo fasirtay in ay tahay diyaaradan mid aad u tayo sareysa diyaaradan oo ay sameeyso shirkadda lagu magacaabo Jando Aerospace ayaa waxay adeegsataa gantaalka lagu magacaabo BL-15 gantaalkan ayaa waxa la sheegayaa si guul ah inuu u soo riday diyaaradihii Hindiya waliba qaarkood waxa lagu soo riday gudaha Hindiya wargeyska lagu magacaabo Israa'iil Hayom ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa Iiraan hadda in ay ku jirto qorshihii diyaaradahan ay kaga soo iibsan lahayd Shiinaha waxaana lagu soo waramayaa hadda ka hor in ay dalbatay diyaaradahan laakiin Shiinuhu waa ka cagajiiday sababtoo ah wuxuu diiday inuu ka caraysiyo Mareykanka gaar ahaan cunaqabataynta hubka ee saaran Iiraan laakiin Iiraan hadda waxa la leeyahay waxay doonaysaa inay dib u dhisto awoodida xagga cirka diyaaradahan aad bay uga baahan tahay halka marka waxay dul istaagno diyaaradan la yiraahdo J10 waxa la socota diyaarad kale oo Pakistan isticmaalaysay oo nooca sahanka ah labadan diyaar markay hawada galaan diyaaradan sahanka dagaalka ma galayso hawada Pakistan bay ku jirtay waxay sameynaysaa raadaar waxay wadataa dhowr boqol oo kiiloomitir soo qabanaya mar allaale markuu raadaarkaas soo qabto
isla markiiba waxay siinaysaa signal ama xog wax u diraysaa diyaaradan J10 duuliyaha markaas xogta markuu helo gataalku ridaya diyaaradda marka Ravial ayadoo aan xitaa ka warhayn inay hawada ku jirto diyaaradan la yiraahdo J10 ayaa la gubayaa waa sababta marka Israa'iil u walacsan tahay sababta Shiinaha laftigiisa wuxuu rabaa inuu tijaabiyo diyaaradan inay la dagaalanto diyaaradaha Mareykanka ee F-35, F-16, F-22 iyo F-15 oo ay ku hubaysiin ciidanka Israa'iil Shiinaha marka waxa la arrintan u bareeray sababtoo ah wuxuu arkayaa haddii xaaladdu meesha ay ka baxdo Iiraan in isaga laftiisa saameyn ay ku yeelanayso shidaalka ugu badan Shiinaha wuxuu ka qaataa Iiraan sidoo kale wuxuu rabaa Shiinaha inuu dhiso wado weyn oo isku xirta ilaa iyo Turkiga ilaa iyo Shiinaha iminka waxa la keenay Iiraan wadadaasi waxay soo martaa dhowr wadan oo kale waxa kale oo qorshaha kamid ah in wado kale la geeyo Pakistan Shiinaha marka Pakistan uu taageeray waxaana soo baxday marka war sheegaya inuusan aqbalayn Iiraan sidoo kale inay meesha ka baxdo waa sababtaas waxa leeyahay sababta diyaaradaha loo siinaya haddii diyaaradahan ay hesho Iiraanna hawadeeda waxa leeyahay waa suganta ciidanka Iiraan xagga cirka kuma fiicna waxa ugu wacan cunaqabataynta saaran meesha Israa'iil ka haysato diyaaradda F-35 F-22 F-18 Iiraan xilligii boqortooyada Shaaha diyaaradihii Mareykanka ee F-14 ayaa ugu dambeeyay inkastoo la sheegay Ruushka ilaa 2 xabo ilaa 3 xabo saaqo inuu siiyay sidoo kale waxa leeyahay qorshaha waxa kamid ah Iiraan inay hesho nidaamka difaaca ee loo yaqaano HQ-9 nidaamka difaaca ayaa wuxuu yahay mid aad iyo aad casri u ah sidoo kale xitaa waxa soo iibsatay Masar dhawaan nidaamkan Hindi oo loo isticmaalo laftigeeda oo Pakistan ba isticmaashay HQ-9 waa mid kamid ah nidaamyada difaaca ee ugu sareeya waagii hore waxa la yiri Shiinaha qalabkiisa militariga reer galbeedka ee Mareykanka dacayad adag ayay ku fureen laakiin dagaalkii Pakistan ayaa muujiyay awoodda sare ee Shiinaha gaar ahaan diyaaradan J10 iyo nidaamkan difaaca ee HQ-9 Israa'iil marka walaac weyn baa qabta sababtoo ah Israa'iil waxay ku dagaalantaa waa diyaaradaha xagga dhulka aan arkaynaa Gaza waxa ka socda dagaalka xitaa Lebanon 2 bilood ay Israa'iil waxa ka gudbi weyday deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta Lebanon oo dagaalyahanada Hezbollah jilibka ay laabeen arrinta marka waxa leeyahay waa arrin cusub istiraatiijiyad cusub oo juqraafi siyaasadeedka gobolka bariga dhexna wax weyn ka bedeli doonta waynu arki doonaa wixii arrimahaas ka soo kordhay insha Allah taala inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo American oo dhex maray Ruushka iyo Iiraan walow laakiin qodob uusan ka jirin oranaya yani kuma jiro qodobka oranaya iskaashi difaac haddii la soo weeraro mid kamid ah labada dhinac sababtoo ah June 2024 heshiiska ay kala saxiixdeen Kim Jong-un iyo Vladimir Putin wuxuu dhigayay labada wadan haddii mid kamid ah la soo weeraro in loo gurmado ama la difaaco waana sababta Kuuriyada Waqooyi ciidamada ugu dirtay Ruushka oo ay u xoreeyeen gobolka Kursk haddaba aynu eegno warbixintan xiisaha leh ee ku aadan xiriirkan cusub iyo suurtagalnimada Iiraan inay hesho diyaaradaha casriga ah ee Shiinaha waa diyaaradii dagaalkii Pakistan iyo Hindiya wacdalaha ka dhigtay ee Hindiya ay ka qaylisay haddaba warbixino kala duwan oo warbaahinta ay qorayso ayaa waxay sheegayaan in Israa'iil aad uga walacsan tahay Iiraan inay hesho diyaaradaha dagaalka casriga ah ee Shiinaha iyadoo la sheegayo in Israa'iil ay ku gacan sareysay dagaalka xagga hawada gaar ahaan diyaaradaha inkastoo Iiraan ay isticmaashay gantaalada wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz ayaa waxa uu sheegay inay isku diyaarinayaan qorshe cusub oo suurto gelinaya Israa'iil inay ka hortagto in Iiraan ay awood xagga cirka hormariso arrintan waxa loo fasirtay inay tahay in Israa'iil ay doonayso inay ka hortagto diyaaradahaas inay soo galaan gudaha Iiraan waxaana la sheegayaa maalintii ugu dambeysay ee dagaalkii dhex maray Iiraan iyo Israa'iil in la duqeeyay 6 garoon oo Iiraan ay leedahay warbaahin ayaa waxay sheegayaan
in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Iiraan Aziz Nasir Sadeh oo ku sugan yahay magaalada Beijing inkastoo halkaas oo kaga qayb galayay shirka iskaashiga Shanghai haddana waxaa la arkay wasiirka oo dul saaran diyaarad lagu magacaabo J-10C iyadoo markaa la sheegayo intaasi ay tahay mid loo fasirtay wasiirka in diyaaradan uu tijaabinayo sida halkan ay kaga muuqata diyaaradda uu dul fadhiyo ama diyaaradda meesha laga wado uu bayloodo ama duuliyaha oo fadhiyo wasiirka gaashaandhigga ee Iiraan waxaa loo fasirtay inay tahay tijaabadii ugu dambeysay oo diyaaradda la tijaabinayo arrin qarsoodiya xitaa ma aha marka ay wax xusaya in wasiirka la arkay isagoo fadhiya kursiga diyaaradda laga wado ee diyaaradda nooceeda uu yahay J-10C arrintan ayaa waxa ay qayb ka tahay baa la yiri qorshaha lagu doonayo Iiraan in diyaaraddan ay ku hesho diyaaraddan waxay caan noqotay dagaalkii dhex maray Hindiya iyo Pakistan kadib markii dhulka ay soo dhigtay raxan Shiinaha oo Iiraan u bedelaya Ruushka iyadoo lagu soo waramayo in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Iiraan haatan uu ku sugan yahay waddanka Shiinaha waxaana lagu soo waramayaa in lagu dhow yahay in la gaaro heshiis rasmi ah oo la xiriira in Iiraan ay la soo wareegto diyaaradda caanka ee J-10 diyaaraddaasi oo la sheegayo inay ka mid tahay diyaaradaha ugu casirsan kuwa dagaalka isla markaasna Hindiya ay ka qaylisay haddaba arrintan maxay uga macno tahay Iiraan gaar ahaan colaadda kala dhaxaysa Mareykanka iyo Israa'iil ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin cusub oo dhanka sirdoonka oo soo baxday ayaa waxay sheegaysaa qorshaha Israa'iil weerarka ay ku qaaday Iiraan inta uu socday muddada la diyaarinayay iyo xog faahfaahsan oo ku aadan sida ay ugu suurtay gashay militariga Israa'iil iyo sirdoonkaba inay gudaha Iiraan hawlgallo culus ay ka fuliyaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka falceliyay wararka sheegaya in balaayiin dollar uu siinayo Iiraan si ay u fuliso qorshe uu wato muxuu yahay qorshahaasi maxayse tahay beegnitan cusub ama hadalkan cusub ee ka soo yeeray madaxweyne Trump ee arrimahaasi la xiriira dhammaan qodobadaasi ayaan barnaamijkan idinkugu faahfaahin doonaa soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka qodobka koowaad ee barnaamijka waxaynu ku eegaynaa macluumaad dhanka sirdoonka oo soo baxay oo ku aadan qorshaha Israa'iil ay diyaarinaysay weerarka ay ku qaaday waddankaasi Iiraan arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay arrin muddo dheer Israa'iil ka shaqaynaysay waxaa kaloo xogtan sirdoonka ee soo baxday ku jira in Donald Trump wuxuu ka ogaa weerarkaasi iyo khiyaanada lagu sameeyay Iiraan gaar ahaan wadahadaladii soo bilowday bishii Abriil ee dhex maray wufuudda kala socota Mareykanka iyo Iiraan arrintaasi oo lagu macneeyay inay ahayd arrin loogu talagalay arrinta uraniumka laakiin ay dhisato warshad loogu talagalay in dhanka nuclearka ay u adeegsato hab nabadeed gaar ahaan tamarta macnaha in korontada laga dhaliyo warshadaha loo adeegsado laakiin aan loo isticmaalin in lagu bacrimiyo uraniumka Trump wuxuu si adag u dhaleelay warbixinadaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay arrin aan la aqbali karin waxaana uu ka dalbaday xukuumadda Iiraan inay ogolaato baaritaan lagu sameeyo xarumaheeda isla markaasna ay ogolaato in ergada ama xubnaha ka socda hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA in ay tagaan gudaha Iiraan tan iyo bishii Abriil waxa Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeyay wada xaajoodiyo dadban oo aan toos ahayn kuwaasi oo ay dhexaadinaysay Cumaan laakiin xaaladdu waxay isbedeshay 13 bishii Juun markaasi oo Israa'iil weerar ku qaaday Iiraan Mareykankuna isna uu axadii la soo dhaafay weerar ku qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan haddaba marka laga tago hadalka uu beeninaya madaxweynaha Mareykanka warbaahintu ay sheegtay laba arrimood baa lagu qiimeyn karaa waa midda koowaad waxaan leeyahay Trump waxaa suurtagal ah inuu ka carooday hadalkii uu jeediyay hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei oo uu ku sheegay dagaalka inay ka guuleysteen Mareykankana dignin uu jeediyay marka waxaan leeyahay Trump waxa arrintan inay jirtay xaqiijinaya markuu leeyahay waxaan kaloo ka laabtay in Iiraan laga qaado cunaqabataynta marka maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahayd
lacagta 6 bilyan oo dollar ah oo Iiraan kaga xayiran bangiyada shisheeye lacag waxa jirta ilaa 6 bilyan oo dollar ah oo Iiraan ka xayiran lacagtaas marka Trump wuxuu soo jeediyay in loo fasaxo sidoo kale wuxuu ogolaaday Shiinaha in uu ka sii iibsado Iiraan shidaalka awal marka hore muxuu sameeyay jiray maraakiibta ka qaada shidaalka Iiraan lacagta bangiyada u soo marsiiya Iiraan ayuu Mareykanku wuxuu saari jiray cunaqabateyn sababtoo ah Shiinaha kama hor istaagi karo Shiinaha marka maxay bilaabeen maraakiib dawladdu ay leedahay ayaa imaanaya wadanka Iiraan oo shidaalka ka qaadaya maxaa yeelay shirkadaha kale ee ganacsiga cunaqabateyn baa la saaraya laakiin shirkadaha dawladda Shiinaha ay leedahay cunaqabateyn ma kala jecla halkaas marka waxa ka cad in uu jiray qorshahan 30 bilyan oo dollar ah oo wadamada khaliijka laga qaadi lahaa Mareykanka lacagta ma soo bixiyeen warbixinta shalay waxa ku jirtay aan idin soo gudbinay in lacagtaas laga qaadiyo wadamada Carabta laakiin Iiraan lagu talagalay inay iska dayso xarumahan nuclearka ama ha noqoto Fardo iyo kuwa kale Isfahaan iyo kuwa kale laakiin ay dhisato hal warshad oo ay adeegsato barnaamijyada tamarta ee rayidka ah laakiin ciidan aan ahayn oo arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha waaye marka waxaan u gudbaynaa sheeko cajiiba horta gudaha Iiraan waxa ka socda guux aad u fara badan oo leeyahay ruushka sidii aan ugu lisnay naguma san hambayn waa halkii Soomaalidu ay ka tiri sidaan kuugu lisay iguma dan hambayn maxay tahay sababtu marka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa la filayay Iiraan markii lagu go'obtay oo Israa'iil ay weerartay oo Mareykanku uu weeraray inuu garab istaago laakiin ruushku wuxuu ku ekaaday af kaliya meeshii loo baahnaa taageero rasmi ah ayuu afka ku ekaaday walow afka laftigiisa hiilo uu galo oo dhanka diblomaasiyadda uu aad uga taageeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay aad looga cambaariyay weerarkaas laakiin haddana laba arrimood baan isku keenaynaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin intii colaadan socotay hadal buu jeediyay wuxuu yiri wadanka Israa'iil raali ahada Israa'iil waxa ku dhaqan buu yiri 1 milyan oo dad asalkooda ruush u yahay maxaa loo jeedaa marka dabcan aad ka warqabtaan Israa'iil ma ahayn dal jiray markii hore waa gacan ku sameys 1948 wala dhis dadka ku dhaqan marka Israa'iiliinta wada dibadaha ka yimid tusaale ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu aabis yurta baribu ka yimid awowgiis iyo aabisba wasiirada aad u jeedid hadda wasiirka hore gaashaandhiga Yoav Galan wasiirka maaliyadda Smotrich dhamaan asalkooda waa Yurubta bari kuwa kale waxa ka yimaadeen Yurubta galbeed kuwa kale waxa ka yimaadeen dadka Israa'iiliinta Mareykanka qaar ba Ethiopia laga keenay xitaa Carabaha qaar ba laga keenay gaar ahaan Yahuudi Ciraaq oo kale marka meesha waa meel loo haajiray oo la isugu tagay tusaale kale wasiirka lagu magacaabo Smotrich magaca aabihiis asaga waxa la yiraahdaa Bezalel Smotrich magaalo ku taal wadanka Ukraine ba Smotrich la yiraahdaa halkaas uu ka soo jeedaa waa ninka hadda raba dadka Falastiiniyiinta oo 1000 sano iyo ka badan ka soo jeeda deegaanadaas inuu yiraahdo ana iskale deegaanadan waa inararaya marka hadalka aan u laabto madaxweynaha ruushka markuu wuxuu yiri 1 milyan oo dad asalkooda u yahay ruush ayaa ku dhaqan wadanka Israa'iil arinta marka waxa loo fasirtay inuu ula jeedo Iiraan ma doonan intaan gantaalo siino gantaaladaas inay ku burburiso dad ruush ah hadalkaas baa loo fasirtay laakiin waxa la leeyahay tani waxay ka hor imaanaysaa Iiraan taageerada ay taageertay ruushka oo maxaa ka mid ah diyaaradahan la yiraahdo shahiid 136 oo aad wada garanaysaan diyaaradda ismiidaamisa oo ruushka uu aad uga adeegsaday dagaalka Ukraine waxa kale oo soo baxday xitaa dhowr bilood ka hor Iiraan inay ruushka siisay qalabka laga rido gantaalada gantaalku waa labo gantaalka iyo qalabtii lagu rakibo laga ridayo maxay dhalisay marka arintaas cunaqabateyn dheeraad in la saaray Iiraan waxay kala dhalisay shirkadda diyaaradaha ee
air Iran air in laga joojiyey inay timaado dhammaan wadamada Yurub marka xalay waxaan daawanayay barnaamij mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada waddanka Lubnaan laakiin Iran taageera ay ka hadlayeen waxay lahaayeen ruushku Iran wuu khiyaanay maxaa marka cusub hadda waxaa cusub Shiinaha inuu jeestay Iran inuu jeestay waliba xitaa hore waxa u jiray heshiis iskaashi dhanka military